waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u cadeeyo anigoo ka hadal qaadanayo warqadii ka soo baxday xafiiska Villa Soomaaliya ee madaxweynaha xilkiisa dhamaaday oo ugu saaray guddiga arinta Ikraan Tahliil taas waxay cadeyn u tahay in madaxweyne Farmaajo uusan diyaar u ahayn marnaba in ay Ikraan cadaalad hesho kiiskeedana uu maxkamadda ku dhamaado 3 bilood ku dhawaada laga jooga marnaba ma uusan ka hadlin madaxweynaha arinta Ikraan iyo meesha ay ku dambeysay iyo Ikraan waxa ku dhacay intaba in marka caawa uu dhaho guddiga u saaray iyadoo maxkamad dacwo la geeyay waalidka Ikraan ay dacweeyeen dad la tuhmaayay laguna tuhmaayay in Ikraan gacantooda ku dambeysay madaxweynaha caawa wuxuu isku cadeeyay kiiska Ikraan inuu asaga ku lug leeyahay ama marqaati uu ka yahay ama uu meel ku og yahay waxaana marqaati ka ah in uu caawa dhahayo waxa la soo magacaabaya taliyaha nabad sugidda wuxuu soo magacaabaya xubin baarta Ikraan nin asaga eedeysan oo la dhahayo waxaad keensataa qof eeda adiga lagu haysto ku baara keenso oo adiga yaani ku soo baara adduunka meel ay ka dhacdo ma jirto ummadda Soomaaliyeed marqaati ha ka ahaato ha ogaato awal waxaan isdhihi jirnaa waxaan madaxweynaha been ma laga sheegoyaa maalin kasta waxa la leeyahay madaxweynaha hortaagan arinta Ikraan caawa wuu cadeystay horena wuu cadeystay dabcan markii uu taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir oo looga shakisnaa gabadha lagu tuhunsanaa kuna eedeysnaa oo maxkamadda dacwad ka taalay in uu ka dhigay taliyihii nabad sugidda ee dalka caawana marqaati labaad uu sameystay waalidka Ikraan mar walba waxay u baahan yihiin cadaaladooduna maxkamaday geysteen maxkamadayna ka sugayaan madaxweyne Farmaajo hadii kiiskan uusan asaga ku lug lahayn hadii kiiskan asaga uusan ogeyn hadii uusan asaga amrin asaga madaxweynihii dalka ugu sareeyay ahaay haduusan asaga amrin muxuu ugu diidan yahay cadaalad ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa prime ministerka waalidka Ikraan aday kugu qanacsan yihiin ummadda Soomaaliyeedna aday kugu qanacsan yihiin kiiskan adiga u qaaday markay ooysay hooyo qaali adiga qaaday oo talaabo ka qaaday oo ka hadlay waxaan rabnaa maantana sidii shalay aad u qaaday kiiskan inaad u qaadid Ikraan waxay u baahan tahay cadaalad ummadda Soomaaliyeedna waxay u baahan yihiin cadaalad Ikraan meel ha lagu sheego haday dhimatana meedkeedii hal la keeno haday nooshahayna hal la keeno haddaan labadaba la hayninna dadkii aan tuhmayno oo maxkamadda la geeyay oo la dacweeyay maxkamad ha la saaro meeshan guddi waa dhaaftay guddi meel loo saara ma joogto hore guddiga loo saaray meeqa guddiga la saaray gobolka Banaadir la qarxiyay duqi magaalada ku dhintay iyo 4 agaasime iyo dad kale oo badan oo shaqaale ah guddiga loo saaray intee ku dambeeyay madaxweyne guddigaas meeqa kiis ayaa guddi loo saaray lama madaxweynaha la weeraray hotel lagu weeraray banaanbaxayaal oo banaanbax silmi sameynayana la weeraray guddiga loo saaray intee ku dambeeyeen arinta Ikraan guddi ma kaaga harayso madaxweynuhu guddi kaaga ma harayso maxkamadda gey nimanka saaxiibada ah nimanka aad xilka u magacawday maxkamadda gey maxkamadda ha soo cadeyso inaysan dambi lahayn markaasaan ku qancayna annagana intii Ikraan la weysanaa iyo markii ay soo dhacday message-kii SNTV lagu soo qoray lagu sheegay Ikraan inay al-shabaab u gacan gashay oo ay gooriyootay kadib madaxweyne Farmaajo laba talaabo waay oo uu qaadayo oo liddi ku ah kiiska Ikraan markii koobaad markii laga qaaday Fahad Yaasiin xilka uu diiday mana aqbalin in xilka laga qaado mar labaad haddana wuxuu magacaabay isla ninkii tuhmanayaasha ahaa oo kiiska loo haystay markii saddexaad waa caawa oo uu guddi u saaray arinta Ikraan markii uu waayay meel oo uga baxsado waxay noqonay marka intaan ka badan madaxweyne Farmaajo kiiskan asaga ku lug leh asaga in la dacweeyay noqonaysa waalidka Ikraanna waxay sameyn doonaan dacwad oo ay ku dacweyn doonaan in uu hor istaagay cadaaladii inuu hor istaagay asaga inuu dambiilayaasha asaga uu yaani uu asaga dugsiinayo oo asaga ka soo horeeyo marka qof kasta oo hada cadaalada diido in dad la eedeysanayaal ahna uu asaga difaac u noqdana hada asaga dambiga ku jiro asagana qayb laga eedeynaya dacwadana la furi doona haduu Ilaahay yiraahdo waalidka Ikraanna sidaas ay sameyn doonaan hadii talaabo kaleeto oo uu qaado madaxweynaha waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed ugu cadeynaynaa annaga oo ah waalidiinta Ikraam qaali maxamuud guhaad iyo Dr. Tahliil Faarax Axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono
warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraan tahliil waxaan ku qanacsannahay oo kaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeena talaabadan iyo talaabooyinkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ku dalacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayay gabadheena haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojina waayo ishortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheena waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyay amarka lagu afduubay gabadheena hadduu madaxweynaha uu ka waantoobi waayo inuu hor istaago cadaalad u raadinta gabadheena waxaan ka gudbin doonaa dacwad lid ku ah madaxweynaha oo gal aan furan doono ku dacweyn doono farmaajo dal iyo dibad farmaajo kiiska gabadheyda ilaahay waa uga baqi waaye gabadhiisa camal waa uga baqi waaye madaxweyne inuu u yahay camal waa uga baqi waaye ilaahay waxaan ka baryay laf dhuungashow nagu noqday farmaajo ilaahay waxaan ka baryay subxaanahu wa tacaala gurigiisa iyo golahiisa iyo caruurtiisa inuu ka arko gabadheyda cadaaladeeda baa lagu taagay ilaahay waxaan ka baryay waran jinna alla inuu ku taago waxaa kaloon halkan uga digayaa laba nin oo xildhibaano Soomaaliyeed isku sheegay xildhibaan Cabdiraxmaan Xirsi Kulmiye Cabdiraxmaan Dheere loo yaqaano xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire labadaas kiiska ikraan lidka ku ah haddayna ka hor wareegin ayagana waxay mudan yihiin la marsiinayaa biidnillaahi baari labadaas nin oo midna Fahad Yaasin qaraabo la yahay midna madaxweynaha uu qaraabo la yahay ummadda Soomaaliyeed ay marqaati ka ahaada oo arka ummadaas inay lid nagu tahay oo xaq darro iyo cadaalad darro ummadda Soomaaliyeed ay u hoggaan ugu yihiin waxaan aniga ku kalsoonahay ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Rooble oo kiiskii cadaaladda aan asaga ka sugayno insha Allah ta'ala ummadda Soomaaliyeed oo awalba i garab taagneed oo walaalahay arka gardarada farmaajo ku socdo iyo labada nin assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay 13 bisha 9aad sanadka 2021 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo xeer madaxweyne ku magacaabay guddi qaran oo baarid ku sameeya kiiska ikraan tahliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka 87 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadi'da asaasiga ee dastuurka markii uu arkay qodobka 9aad xarafkiisaba ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka 126aad faqradiisa 6aad ee dastuurka ee xusaya in hay-adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita ay kontroolaan oo kormeeraan hay-adaha rayidka ah markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraan tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyay in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyay qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo 3 xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qodobka 2 waxaa la farayaa dhammaanba xubnaha guddiga
iyo guddoonkoodaba in ay hawsha si xalkasnimaha u gutaan, warbixinta baaristana ay u gudbiyaan hay-adaha sharciga u leh. waad mahadsantihiin.